kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto Shaadan Madoobe oo ku guuleystay doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mucaaradkii oo kala firxaday farmaajo warka soo saaray doorashada iyo Sheekh Shariif oo isdaarinaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee doorashooyinka Soomaaliya ayaan ku eegaynaa warkeennan balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku bilownay Shaadan Madoobe ayaa loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya doorasho muddo saacadaha soo jiitamaysay oo ugu dambeyn 9 saac habeenimo kusoo gabagabowday tendhada Vision ee gudaha magaalada Muqdisho ayaa xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya loogu doortay Shaadan Maxamed Nuur Shaadan Madoobe oo ah siyaasi waayo araga isla markaana ka tirsan xildhibaanada farakutiriska ee dowladnimada Soomaaliya in badan wax ka og iyo halka laga soo bilaabay intaba doorasho soo jiidantay muddo saacada ayuuna codkan ku helay Shaadan Madoobe inuu baarlamaanka hogaamiyo xildhibaan Shaadan Madoobe ayaa loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka ee cusub kadib doorashada saacado badan qaadatay oo ka dhacday tendhada Vision xildhibaan Shaadan Madoobe ayaa wareegii ugu dambeeyay ee doorashada kaga adkaaday xildhibaan Xasan Cabdi Nuur Sheekh Aadan waa xildhibaan Xasan Cabdi Nuur oo Villa Soomaaliya dhankeeda ay wadatay waxaana uu helay Aadan Madoobe 163 cod halka Xasan Cabdi Nuur uu isaguna ka helay 89 cod guusha Shaadan Madoobe ayaa soo afjaraysa xaaladda hubanti la'aan ah oo dalku ku jiray in ka badan sanad waxayna ka dhigan tahay inay hadda dhisan yihiin labadii hay'ad ee sharci dejinta isla markaana ay leeyihiin guddoon dhameystiran guushan ayaa ka dhigan guul soo hoyatay dhanka iyo xubno ku dhow farmaajo gaar ahaan Shariif Sheekh Axmed oo sanadkan isku diyaarinaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya Shaadan Madoobe ayaa ka tirsanaa xisbiga himilo qaran ee hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed yeeshee waxaa guushiisa kaalin wanaagsan ka wada qaatay dhammaan midowga musharaxiinta sida la ogaaday iyo qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan Axmed Madoobe iyo Siciid Deni oo ninkan gadaalka riixayay waa markii labaad ee Shaadan Madoobe uu hogaamiyo golaha shacabka isagoo sidoo kale horey u soo noqday afhayeenka baarlamaanka muddadii u dhaxaysay 31 Janaayo 2007 ilaa 25 May 2010 doorashada ayaa qaadatay in ka badan 5 saacadood waxayna timid kadib markii saacado ay u xayirnayd arinta xildhibaanada soo doortay Celwaaq oo xildhibaano taageersan Villa Soomaaliya ay diideen inay ka qayb galaan doorashada ka dhaceysay tendhada Vision dhammaan xildhibaanadii Celwaaq lagu soo doortay ayaa loo diiday in wax cod ay ku yeeshaan doorashada muran iyo khilaaf dheer kadib ugu dambeyn waxaa codaynta laga reebay 16 xildhibaan lagu doortay Celwaaq iyadoo sababta lagu sheegay inaysan haysan kaararka aqoonsiga guusha Shaadan Madoobe ayaa leh cawaaqib siyaasadeed oo kale iyadoo la filayo inay dhabaha u xaato in xildhibaanada lagu soo doortay Celwaaq ay toos uga mid noqon karaan ama loo diidi karo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale guusha Shaadan Madoobe waxaa tirsanaya Shariif Sheekh Axmed oo isagu qudhiisa markan isku diyaarinaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya arintan ayaa ka dhigan mar kale in mucaaradkii Soomaaliya gabi ahaan qaarkood ay ku fashilmayaan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya marka laga reebo Sheekh Shariif oo sanadihii dambe aad ugu dhawaa nidaamka farmaajo ee nabad iyo nolol dhinaca kale mucaaradka ayaa kala firxaday kadib guusha Shaadan Madoobe xildhibaano si weyn u garbinayay Shaadan Madoobe inuu soo bixin oo mucaarad ka tirsan ayaa ugu dambeyn damacoodu fashilmay kadib markii la isla gaaray wareegii labaad ee doorashada oo ahaa kii lagu qalay Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Shukur Warsame iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre siyaasiyiintan waxay taageerayeen Black balse isagu wareegii koowaad ayuu ku haray kadib markii uu ka tanaasulay in tartanka uu ka sii mid noqdo taas ayaana dhabarjab weyn u keentay mucaaradkan gaar ahaanna saddexda xubnood ee Xasan Sheekh Cabdiraxmaan iyo Xasan Cali Khayre oo ku mideysnaa in Black uu soo baxo balse ugu dambeyn doorkii nabadii nolol iyo sidoo kale Sheekh Shariif ayaa hirgalay waxaana xil guddoomiyaha ku soo baxay Shaadan Madoobe oo Sheekh Shariif dhankiisa lagu xisaabinayo inkastoo dhankan Shariifka isagana lagu sii xisaabinayo Villa Soomaaliya taasi oo kale in farmaajo kooxdiisa mar uunaysan qasaarin oo weli ay heesaan kalsooni buuxda iyo codad fiican ay ka heli karaan
howlka doorashada ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse Xasan Cali Khayre Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdi Shukr Warsame waxba uma yaalo howlka oo way garoosadeen xalay in aysan waxba gacanta ku haynin isla mar ahaantaana doorashada ee madaxweynaha Soomaaliya qaarkood ay isaga tanaasuli doonaan orodkii badnaa ee loogu jiray doorashadan hadda wuxuu muuqdaa inuu soo dhamaanayo isla markaana guddoonka doorashadiisa laga tisqaadi doono halkay ay doonaan codadka xildhibaanada iyo qofka noqon kara madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bedeli doona Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa ilaa iminka aan wax guuldarro soo gaarin marka loo eego guusha weyn ee gacanta uu ku haysto iyo sida habsamida leh ee u taageeray guusha Sheekh Aadan Madoobe madaxweyne Farmaajo ayaa hambalyo u diray Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo loo doortay xil gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha oo tilmaamay muhiimadda ay leedahay dalkuna u leeyahay dhamaystirka doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa bogaadiyay hannaanka dimuqraadiyadeed ee geedi socodka siyaasadda dalka oo aasaas u ah xasiloonida iyo horumarka dowladnimada ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa ku amaanay xildhibaanada cusub iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dulqaadka ay ku wajaheen hannaanka doorashooyinka dalka oo soo maray marxalado kala duwan isagoo ku bogaadiyay laamaha ammaanka Soomaaliyeed sida ay habeenii maalinba ugu taagnaayeen xaqiijinta amniga doorashooyinka ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la ugu rajeeyay gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe inuu waafajiyo danta dalka dadka diinta sidoo kalena waxa uu xusay doorkii gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa iyo guddigii qabanqaabada doorashada guddoonka ee golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya soo dhaweynta Farmaajo ee doorashada Aadan Madoobe ayaa waxay ku muujinaysaa in ninkan durba uusan si weyn Farmaajo uga shakisanayn safkiisana uu soo mari doono sidoo kale waxay tani ka dhigan tahay in loolanka doorasho ee xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya uu dhex mari doono kaliya madaxweyne Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed sida ay qabaan khibrada siyaasadda iyo dadka xogaalka u ah xaaladda guud ee dalkan Soomaaliya doorashada dalkan waxay u muuqataa mid gabagaba ah waxa hadda cagta saaran bihii ugu dambeeyay ee lagu soo gabagabeyn lahaa doorashooyinka waxa ka dambeeya bishan Abriil ugu dambeyntiina Shariif Sheekh Axmed iyo wasaaranaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya iyo inuu bedel u noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa hadda rajo weyn ka qaba in xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya uu si fudud ku qaadan karo marka loo fiiriyo shakhsiga loo doortay gudoomiyaha iyo tirada codadka uu gacanta ku dhigay waxay ka dhigan doontaa in howlka doorashada Shariif Sheekh Axmed boos weyn uga bannaan yahay isla markaana nabadii nolol ay tahay shakhsiga labaad oo ay taageerayaan si xilkan madaxweynenimada ee Soomaaliya uu u hantiyo gacantana uga dhigo Farmaajo in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleysto kursiga madaxweynenimo ee Soomaaliya waxa uu ka doorbidayaa taa beddelkeeda inuu dhiso Shariif Sheekh Axmed isagana ay gaaraan heshiis siyaasadeed si dhan kale u taageero hadda waxay u muuqataa in qalaasii ka dhex jiray xubnihii mucaaradka uu sii xoogeysanayo maalmaha soo aadanna dagaalka baraha bulshada ee musharaxiinta madaxweynaha uu noqon doona mid adag isla markaana loolanka hadda uu u dhaxeeyo oo kaliya taageerayaasha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taageerayaasha Shariif Sheekh Axmed oo baraha bulshada isku hirdin doona guud ahaan saaxiibayaal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgeliyo